ururka Sidigmaal waa mid ka mid ah ururada gobolka Togdheer waxaanu ka kooban yahay 5 waaxood. haddaba munaasibadan oo ahayd mid kulmisay dhalinyaro waxgarad aqoon-yahanin abwaano qoraayo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa habeenkii xalay ka qabsoontay hoolka hotel dheere ee magaalada Burco. waxaana munaasibadaasi si heer sare ah u soo agaasimay ururka hidaha iyo dhaqanka Sidigmaal madashaasi oo ku marti ahaa qoraaga da'da yar ee Jaamac Ibraahim Axmed ayaa goobtaasi ku soo bandhigay laba dhigan oo la magac baxay sooyaalka dhaqanka iyo kalgacaylku waa qanacaashaqa ka qara'weyn. waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Sidigmaal oo ka warbixiyay marxaladda uu ururku marayo. كل urur caawa la baranayo ama aan oranayno taariikhdiisa aan ka sheekaynaynaa ama xilligii la furay aan ka sheekaynaynaa ama waxyaabuhu qabtaa aan ka sheekaynaynaa ma aha laakiin macnaheedu waxa weeye caawa waxaan ka hadlaynaa labada buug ee ururku soo bandhigi doono inaan bal caawa nala wadaagtaan. Jaamac Ibraahim Axmed waa urur Sidigmaal shakhsi ka tirsan aba xubin ka tirsan. geesta kalena waxaa iyana hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha jaamacadda Alfa University gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer xubno ka socday xisbiga wadani mas'uuliyiin macallimiin iyo xubno kale oo dhammaantood qoraaga uga mahadceliyay labadan dhigan ee uu qalinka u qaatay. runtii ururkan Sidigmaal waa urur dhalinyaro oo fiican oo keenay markaa wax wadanka uu wax laga bedelayo. ka jaamacad ahaan anagoo alfa ahaa ururkan si fiican baan loo shaqeynaa. waxaa ii dheer oo aan mar labaad ku faraxsanahay soo dhaweynaya abwaankan ama qoraagan buugga qoray waxaanan leeyahay dadaalkaagana sii wad. Jaamac Ibraahim Axmed runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan. waxaan leeyahay golayaashan oo kale horaa la isugu iman jiray laakiin waxaan leeyahay googarad la ku bartay caawa laba gool ay yimid runtii waxaan isleeyahay nimaan goobta joogini caawa kale muu rumaysteen. jaamac baa labadan buug qoray buugaag baa inta badan la lahaa bal qaybtiina qaata kule xisbi qaar intay ka hadleen bay iska dhaqaaqeen laakiin runtii anagu horaan u soo gashan ka xisbi ahaan. aad baad mahadsantihiin hadartiin ururka Sidigmaal oo runtii magac aad iyo aad u qurux badan leh magaciina ka muuqataa soo dadaalaysan insha Allah. ugu dambeyntii munaasibada waxaa isna labadiisa dhigan ka warbixiyay qoraaga da'da yar ee Jaamac Ibraahim Axmed waxaana kamid ahaa hadaladiisii. buugga koowaad waxa la yiraahdaa sooyaalka dhaqanka wuxuu ka hadlayaa dhaqanka waxyaabo badan oo ku saabsan haday ka mid yihiin dhaqankii hore amaanta geela fardaha dumarka iyo waxyaabo fara badan. geela Soomaalidu aad bay u jecel amaantiisa. buugga labaad waa kalgacaylku waa qanacaashaqa ka qara'weyn. hada de ummadda nimka qarnigan 12aad waxa dhashay waa ummad jacayl weeyaan. wixii bodhar ka dambeeyay jacaylka halkiisa inuu ka sii hana qaaday kol Facebook la iska bartiyo kol samteesha la isku nasiibiyay. marka waxyaabaha uu kaleefay inaan soo saaro buuggan waxa kamid ah ummaddiiba jacayl bay iska wada danaynaysa. sida muuqaalkan ka muuqata indhaha bulshadu waxay qabanayeen qaar ka mid ah weelkii hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida sida fandhaal iyo dhiil ay ku jiraan dhaygeel. amana aha markii ugu horeysay ururka Sidigmaal ay soo agaasimaan munaasabad noocan oo kale ah. waa Maxamuud Taajir Maxamuud Jesto Africa Cable TV magaalada Burco.